kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweyn qodobada aan kugu hayna waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo Masar ugu hanjabay xiisada Itoobiya si uu u fuliyo qorshe xasaasi ah. Qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Daacish ta Soomaaliya oo isu soo dhiibay. Xogii sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa. Qodobada kale waxaa ka mid noqonaya isballaarinta Oromo iyo sidoo kale isdabarjaridda Soomaalida iyana sheeko ayaan idinkaga haynaa. Qodobada kale waxaa ka mid ah oo aad ku daawan doontaan Somaliland oo qaaday tallaabooyin xasaasi ah oo la xiriira xiisadda Cerigabo. Qodobada wixii nagu soo kordhay ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa, balse markaan haddii aynu ku bilowno, Mareykanka ayaa la sheegay inuu adeegsaday xiisadda biyaha Masar ee cadaadis si uu uga saaro Qaahira inay ogolaato qorshaha barakicinta qasabka ee Falastiiniyiinta Gaza, sida ay warinayso wargeyska Al Carabiya Al Jadid. Intii lagu guda jiray booqashada uu toddobaadkii hore ku tagay Qaahira, sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Trump ayaa kulamo gooni ah la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda Masar, Badr iyo sidoo kale madaxda sirdoonka guud gaar ahaan ninka lagu magacaabo Xasan Rashaad. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray qorshaha muranka badan dhaliyay ee barakicinta dadka reer Gaza iyo xiisadda ka taagan biyo-xireenka Grand ee Itoobiya. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in danjiraha Mareykanka uu soo jeediyay taageerada Mareykanka ee xalinta xiisadda biyo-xireenka Itoobiya ay ku xiran tahay sida ay Masar uga shaqeyso qorshaha lagu barakicinayo shacabka reer Gaza laguna wareejinayo gudaha Masar iyo sidoo kale Urdun. Si kastaba, mas'uuliyiinta Masar ayaa si adag u diiday soo jeedinta ee madaxweyne Trump oo ugu baaqay in Gaza la nadiifiyo, isla markaana dadka halkaas ku haray oo tiradoodu gaarayso 2.3 milyan lagu wareejiyo dalalka dariska. Mas'uuliyiinta Masar ayaa walaac xooggan ka muujiyay qorshaha, iyagoo ka digay caqabadaha iyo sidoo kale cawaaqib xumada ka dhalan karta, kuna adkaysatay hirgelintu in ay tahay mid aad u adag. Danjiraha Mareykanka ayaa sidoo kale la kulmay shakhsiyaad caan ah oo labada hogaamiye xisbi siyaasadeed si loo qiimeeyo mowqifka Masar ee ku aadan qorshaha barakicinta. Wadahadallada ayaa lagu gorfeeyay in dibadbaxyada ka dhanka ah qorshahan ay ka turjumayaan dareen ballaaran oo ka dhana Mareykanka, ama haddii si gaar ah ay ula xiriiraan diidmada qorshaha barakicinta. Sida laga soo xigtay Al Carabiya Al Jadid, danjiraha Mareykanka ayaa si furan uga hadlay banaanbaxyada, isagoo sheegay in ay si toos ah uga falcelinayeen qorshaha ay wadaan Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan diblomaasiyadda Masar oo xog ogaal u ah kulamadaasi ayaa sheegay in ay adkaan doonto in Qaahira ay caabiso qorshaha Trump haddii aanay helin taageero ballaaran oo ka timaada dalalka Carabta. Trump weli waxa uu ku dhegay qorshihiisa. Sarkaalka ayaa xusay in Trump uu si adag u taagan yahay dhaqangelinta qorshahan, inkasta oo Masar si cad ay uga hortimid. Mas'uuliyiinta Masar ayaa ku celiyay in ay diyaar u yihiin sahminta xalal kale oo xaqiijin kara ammaanka Israa'iil iyada oo aan si qasab ah loo barakicin shacabka reer Falastiin. Laba ilo xogaal mid diblomaasi ah iyo sidoo kale mid siyaasadeed ayaa sheegaya in booqashada danjiraha Mareykanka ay u badan tahay in ay tahay kulankii Trump ee toddobaadkii hore uu la yeeshay si uu guud ahaanba ugu guuleysto in dadka reer Gaza laga raro oo Urdun iyo sidoo kale Masar loo qaybiyo. Trump ayaa sheegay in qorshaha barakicinta uu kala hadlay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Siisi, hase yeeshee sarkaal sare oo Masri ah ayaa xilligaasi beeniyay in wadahadal noocaas uu dhacay. Sabtidii marka la eego, madaxtooyada Masar ayaa war rasmi ah xaqiijisay oo soo saartay. Madaxweyne al-Siisi waxa uu sheegay in wax taleefan aanu kula hadlin Donald Trump. Afhayeenka madaxtooyada Masar Mohammed al-Sheni ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wada hadal togan ku yeesheen hirgelinta wareejinta koowaad iyo labaad heshiiska xabad joojinta Gaza, kaas oo ay garwadeen ka ahaayeen Masar, Qatar iyo sidoo kale Mareykanka. Sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay dejinta gurmad bini'aadanimo oo loo diyaarinayo Gaza. El-Shenwi ayaa intaasi ku daray in madaxweyne al-Siisi mar kale uu ku celiyay baahida loo qabo in la gaaro nabad waarta oo gobolka laga hirgelinayo. Waxa uu kaloo xusay in beesha caalamka ay Trump u aragto qof muhiim u ah doorka uu ka ciyaari karo xalinta khilaafka muddada dheer taagnaa.
isagoo ku baaqay in si degdeg ah arrinka loo joojiyo. Markana haddii aan u fiirino hogaamiye sare oo ka tirsan Daacishta Soomaaliya ayaa isi soo dhiibay. Taliye sare oo ka tirsan kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa la qabtay Isniintii sida ay xaqiijiyeen booliiska Puntland 2 maalmood kadib markii hoggaanka Daacish lala beegsaday duqeymo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka iyadoo ciidamada amniga ay sii wadaan weeraro ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku qaadayeen kooxda. Sanadihii lasoo dhaafay ee garabka Daacishta Soomaaliya ayaa sii tarayay si uu u noqdo mid aad u xooggan, balse shabakadan caalamiga ah ayaa Puntland waxay go'aan ku gaartay sidii guud ahaanba ay meesha kaga saari lahayd. Bishii Diseembar ayaa la sheegay in weerar lagu qaaday saldhig ciidan iyadoo xilligaasina ay adeegsanayeen 2 gaari oo qaraxyo lagu xiray. Falanqeeyaasha amniga ayaa sheegay in intaasi ay muujinayso in Daacishta Soomaaliya iyadu ay sii xoogaysanayso. Cabdiraxmaan Shir waxa uu Siciid oo ah madaxa unugga dilalka qorshaha ee kooxda ayaa Isniintii isu dhiibay laamaha ammaanka xilli uu ku sugnaa buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. Taliyaha booliiska gobolka Bari ee Puntland Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa xaqiijiyay qabashada sarkaal lagu naaneyso Lahore kaas oo sidoo kale mas'uul ka ahaa lacago badan oo kooxda ay ka qaado ganacsatada deegaanka. Warkaasina wixii ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa. Haddana haddii aanu fiirino, Somaliland ayaa iyadoo markaan waxay qaadaysaa tallaabo xasaasi ah oo la xiriirta xiisadda Ceergabo. Somaliland ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin cusub oo lagu adkeynayo amniga iyo sidoo kale xasiloonida Ceergabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag kadib dagaallo dhowaan ka dhacay oo lagu barakacay ilaa iyo 45,000 oo qof, isla markaana ay sii kordhisay cabsida laga qabo rabshado hor leh. Wafdi sare oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta Somaliland ayaa ku dhawaaqay in ciidamada booliiska kaliya loo ogolaan doono in ay sugaan amniga magaalada Ceergabo, iyadoo la amray in dhammaan kooxaha hubeysan ee shacabka si ay degdeg ah uga baxaan magaalada. Laga bilaabo maanta, qofna looma ogolaan doono in si sharci darro ah hub ugu dhex wato magaalada. Qof kasta oo jebiya amarka waxa uu la kulmi doonaa ayaa la yiri tallaabo sharci ah, waa sida uu sheegay afhayeenka ee u hadlay Somaliland. Wafdiga ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka barakacay inay dib ugu laabtaan guryahooda iyagoo ku adkeysanaya in xaaladda Ceergabo hadda ay degan tahay. Magaaladu waa ammaan, wax sabab oo looga barakaco ma jirto, dadku waa inay soo laabtaan, ayuu yiri afhayeenku. Dagaalada Ceergabo ayaa qarxay bartamihii Diseembar waxaana isku dhacay ciidamada Somaliland iyo sidoo kale xoogagga ACC Khaatumo, taasoo keentay barakicin baahsan in halkaasi ay ka dhacdo. Guud ahaan warkii aad kala socoteen barteeda saaxiibayaal waa naga intaa. Waxay nagu soo kordhay kuwa soo wadanayd ku daawan doontaan idinkuna wad ku mahadsantiin.